waa ninkii ugu hantida badnaa abid ee soo mara adduunka. Hanti uusan aqligu bini'aadamka malaysan karin ayuu Alle ku galaday, heer uu gaaray in furayaasha khasnadihiisa culays daraaddood ay qaadaan 70 nin oo xoog waaweyn. Wixii qaraabo ahaayeen Nabi Muuse wuxuu ka mid ahaa dadkii ugu cibaadada badnaa reer Bani Israa'iil, heer uu gaaray inuu 40 sano god u galo si uu Ilaahay u caabudo, adduunkan ugu dheeraado. Ka hor inta uusan Alle siin hanti iyo adduunyo uu aqligu bini'aadamku malaysan karin, taasi oo ka dhigtay mid ka fogaada caabudidda Alle, kuna kibray adduunka ilaa ugu dambeyn dhulka lala jaray isaga iyo hantidiisaba. Qaaruun wuxuu ka mid ahaa dadkii raacsanaa Nabi Muuse, wuxuuna ahaa kooda ugu cibaadada badan. Wuxuu gaaray heer uu god u galo si uu uga dheeraado adduunka, isaga oo godkaasi ku jiray 40 sano oo uu Ilaahay caabudayay. Ibliis ayaa doonay inuu fasahaadiyo, laakiin waddo kasta oo uu marayba wuu awoodi waayey inuu diintiisa ka fasahaadiyo, ilaa uu dambeyn iska soo dhigay sida qof oo kale, uguna yimid Qaaruun godkii uu ku jiray. Wuxuuna u sheegay inuu doonayo inuu Alle la caabudo, godkana kula jiro. Qaaruun ayaa soo dhaweeyay, wuxuuna ahaa Ibliis mid godkaasi ku cibaadaysta si uu u fasahaadiyo Qaaruun. Markii uu muddo kula jiray godkii, iskana dhigayay qof Alle ka cabsi badan, ayuu doonay inuu tartiib tartiib u fasahaadiyo Qaaruun. Wuxuu ku yiri, ka bixi mayno godkeenan wax kasta oo dhaca, xitaa haddii aynu cunto u baahno ama laynagu yeero inaan jannaaso ka qayb galno, si aysan dadku cibaadadeena inooga mashquulin. Qaaruun ayaa oggolaaday, waxayna reerkiisu cuntada ugu keeni jireen godkiisa. Wixii uu muddo halkaas cunto loogu keenaba oo aysan Qaaruun iyo dadku is arkin, Ibliis ayaa Qaaruun ku yiri, dadkii waxaynu ku noqonnay culays, si aynu culayska ugu dulqaadno oo aan layna dhibsan, aynu hal maalin bannaanka u baxno oo soo shaqaysanno, maalmaha kale ee isbuuca aynu Alle caabudno. Qaaruun ayaa oggolaaday. Waxay muddo sidaasi ahaadaanba oo ay hal maalin soo shaqaystaan, inta kalena ay godkooda ku jiraan. Mar kale Ibliis ayaa ku yiri Qaaruun, cidna waxba kuma sadaqaysanno oo dadka ma caawinno. Haddii aynu caawin lahayna maba haysano dhaqaale inagu filan oo aynu wax ku caawinno. Haddaba si aynu u noqonno kuwo wax sadaqaysta, aynu maalin shaqaysanno, maalinna Ilaahay caabudno. Qaaruun ayaa ku qancay aragtidan, wuxuuna markaan bilaabay inuu maalin shaqeeyo, maalinna Ilaahay caabudo. Ibliis ayaa dareemay inuu halkii uu la rabay Qaaruun uu keenay, kadibna wuu isaga tegay. Qaaruun ayaa Ilaahay u furay adduunkii, una barakeeyay xoolihiisii, kuna galladay dhaqaale aan tiro iyo xad toona lahayn. Wuxuu gaaray heer uu ilaaway suhdigii iyo cibaadadii. Hantidiisa ayaa gaartay heer qasnadaha ay ku kaydsan tahay, furayaasheeda ay qaadaan 70 nin oo xoog waaweyn. Marka uu marayo waddooyinka, wuxuu iska muujin jiray hantida uu Alle ku galladay, wuxuuna soo bixi jiray isaga oo ku labisan dhar ugu quruxda badan, wadaan shaqaalihiisii, la socdaan fardo lagu xardhay dahab, hareer socdaanna gacanyarayaashiisii. Dadka u dhow meelaha uu marayo ayaa ku riyoon jiray in ay mar un sidiisa oo kale noqdaan. Hantidan iyo adduunkan gacanta loo geliyey wuxuu ka qaaday kibir iyo isla weyni, ilaa uu Nabi Muuse kula taliyey inuu kibirka iska ilaaliyo, maadaama uusan kibirka Alle jeclayn. Hantidan uu Ilaahay gacanta u geliyeyna uu ku sadaqaysto masaakiinta. Qaaruun ayaa si ay isla weyni ku jirto ugu jawaabay, hantidan waxaan ku kasbaday aqoonteyda oo ma aha wuxuu Alle igu galladay. Markii uu Ilaahay subxaanahu wa tacaala ku soo dejiyey Nabi Muuse xukunka sakada, maadaama Qaaruun uu ahaa ninkii ugu hantida badnaa, wuxuu u sheegay Nabi Muuse inuu ka bixiyo xoolihiisa sako, isagoo u sheegay in 1000 diinaarba uu 1 diinaar ka bixiyo, sidoo kalena 1000 dirham uu 1 dirham ka bixiyo, xoolahana sidaas oo kale 1000 neefba uu 1 neef saka ahaan u bixiyo. Qaaruun ayaa markii uu xisaabiyey sakada ku waajibtay, wuxuu arkay in xoolo badan laga sugayo oo ay saka ahaan u baxayaan, mana jeclaysan in xoolahaas intaas leeg bixiyo. Kadibna maalqabeennadii kale ee ay habeenadii wada caawin jireen ayuu ku yiri, Muuse wuxuu idin amray amro badan oo waad adeecdeen, maanta wuxuu u soo dhigtay hantidiinnii oo wuxuu rabaa inuu qaato, maxaan sameynaa? Waxay dhaheen, adiga ayaa inoogu weyn, wixii aadna amartid ayaynu samaynaynaa. Kadib inta fikira ayuu yiri, waxaan keenaynaa haweeney, waxaynu siinaynaa xoogaa dhaqaale ah, kadibna waxaynu dhahaynaa ku been furo Nabi Muuse calayhi salaam oo dheh wuu iga sinaystay. Qaaruun ayaa haweeneydii loo keenay, kadibna wuxuu siiyey 1000 dirham, 1000 diinaar iyo xoogaa dahab ah. Markii la gaaray maalintii kale, Nabi Muuse ayaa u soo baxay si uu sidii caadada u ahayd ugu yeero dadka caabudidda Alle. Qaaruun oo xalay sii degay dhagar ayaa u yimid Nabi Muuse, wuxuuna dadka hortiisa ku yiri, qofkii qof ka sinaysta maxaa lagu sameynayaa? Nabi Muuse calayhi salaam ayaa yiri, qofkii sinaystay isagoo xaas lahayn waxaa la jeedaalanayaa 100 jeedaal, kii sinaystay isagoo xaas lehna waxaa lagu dilayaa dhagax. Kadibna Qaaruun ayaa yiri,
ma xataa adiga?" Nabi Muuse calayhi salaatu wasalaam ayaa yidhi, "Haa, xitaa aniga haddii aan sinaysto waa la ciqaabayaa." Qaaruun ayaa yidhi, "Dadku waxay leeyihiin waxaad ka sinaysatay haweeney." Nabi Muuse ayaa yidhi, "Keena gabadha sidaa tiri." Waxaa loogu yeeray haweeneydii, waxaana la hor keenay Nabi Muuse calayhi salaam. Kadib wuxuu ku yidhi, "Waxaan kugu dhaarshay Allihii kala baray badda, soona dejiyey kitaabka Tawraad ee runta sheeg." Haweeneydii oo hadalka Nabi Muuse cabsi ku abuuray ayaa sheegtay sida xaqiiqada ahayd iyo in lagu yiri ku been furo Nabi Muuse. Nabi Muuse calayhi salaam ayaa markiiba sujuud la dhacay, wuxuuna yidhi isagoo ilmeynaya, "Ilaahu, haddii aan rasuulkaaga ahay daraadday u carow." Ilaahay ayaa amray dhulka inuu adeeco Nabi Muuse, sameeyana wixii uu faraba. Nabi Muuse ayaa isugu yeeray reer banu Israa'iil, kadibna wuxuu ku yidhi, "Ilaahay sidii uu iigu soo diray Fircoon ayuu Qaaruun iigu soo diray. Qofkii aniga i adeecaya ha isoo raaco oo ha isaga yimaado Qaaruun." Reer banu Israa'iil ayaa la saftay Nabi Muuse marka laga yimaado 2 nin oo iyagu go'aansaday inay Qaaruun la saftaan. Kadibna Nabi Muuse ayaa amray dhulka inuu la jaro inta uu ku taagan yahay Qaaruun iyo raggii la jirsadayba. Markaa haddana wuxuu amray inuu dhulka la go'o hantidii Qaaruun. Markii uu gaaray salka hoose ee dhulka ayuu oodmay dhulkii, halkaasina waxaa ku soo dhammaaday waayihii iyo waqtigii Qaaruun iyo maalkiisiiba.